daawadayaal iminkana waa wararkani bariga dhexe oo aalaaba idinka yimaada stuudiyaha Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya waa anigoo ah Xawil Cagaare iminkana wararka bariga dhexe waxa ugu waaweyn dowladda Liibiya ayaa soo afjartay burburinta kaydka hubkeeda kiimikada ah burburintaas oo ay soo bilowday sanadkii 2004 shir jaraad oo ay ka qayb galeen ergo sare oo ka socda beesha caalamka bartamihii wiigan oo lagu qabtay caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli ayaa shaaca looga qaaday soo afjaridda burburinta kaydka hubkeeda kiimikada ee Liibiya hanaankan waxa uu soo bilowday 9 sano ka hor xilligaas uu Liibiya ka talinayay Muammar al-Gaddafi burburinta hubka kiimikada ayaa waxa Liibiya gacan ka siiyay wadamada Mareykanka Jarmalka iyo Kanada agaasimaha guud ee hadda mamnuuca hubka kiimikada Ahmed As-Sumcu oo shir jaraa'id ku qabtay ayaa talaabada ku tilmaamay horumar wanaagsan oo ay ku talaabsatay ama ay ku dhaqaaqday wadanka Liibiya waxa uu inta ku daray inay tusaale wanaagsan u tahay iskaashiga caalamiga ee hubka kiimikada ah ee ku aadan midka haatan ka socda wadanka Suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa dhankiisa ku tilmaamay burburinta talaabo taariikhi ah oo ay Liibiya qaadatay kana dhalatay wada shaqaynta ay la yeesheen saaxiibadooda caalamka sanadkii 2004 Liibiya ayaa lagu qiyaasay in ay haysatay 13 tan oo ah gaaska kiimikada ah ee loo yaqaan mustaadka ugu yaraan 27 qof ayaa ku dhintay markii bambooyin isxiga ay ka qarxeen bartamaha caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad weerarkan ayaa dhacay subaxnimadii hore iyadoo xilligaas dadku ay u socdeen shaqooyin wuxuuna ka dhacay meel u dhow goobta sida aadka loo ilaaliyay ee loo yaqaan Green Zone oo ay ku yaalaan inta badan xafiisyada dawladda iyo safaaradaha reer galbeedka laba baabuur ayaa lagu qarxiyay banaanka hore ee dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda qarax kalena ayaa ka dhacay meel maqaayadaha u dhow isla wasaaraddaas wadanka Ciraaq waxaa baryahan ka jiray mowjado weeraro oo ay sameynayaan dhalinyaro mitidiin ah oo sunniyiin ah iyo shiicada dalka xukunta oo bartilmaameedsanaysa wakiil ka socda dowladda Pakistan iyo ururka Taliban ee Pakistan ayaa bilaabay wada hadallo la doonayay in lagu soo afjaro rabshadaha dhiigga badan ay ku daateen wararka ayaa sheegay in wareegii koowaad ee wada hadallada uu ka furmay bartamihii weekend goob aan la shaacin oo ku taal magaalada Islamabad kadib 2 maalmood oo dib loo dhigay markii saraakiisha dowladda imaan waayeen kulankaas wakiiladan ayaa bilowgii kulanka la filayay inay isla meel dhigaan ajendaha wada hadalka nabadeed iyo sidii loo soo afjari lahaa dhiigan muddada badan daadanayay dagaalka ay wado kooxda Taliban ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof iyadoo kooxda Taliban ay doonayso inay soo dhisto dawlad madax bannaan oo islaami ah Taliban waxay wali ku adkaysanaysaa dhaqangelinta sharciga islaamka halka dawladuna ay doonayso in la dhiirigeliyo xorriyad ku saleysan dimuqraadiyadda dadka dhaleeceeya dawladda ayaa ku eedeeyay dawladda ra'iisul wasaare Nawaz Sharif inay hore kooxda Taliban uga qaadatay mowqif dabacsan warbixin ka soo baxday ururka ay ku midaysan yihiin wadamada Carbeed ayaa lagu sheegay in ururka Ikhwan Muslimiin ee dalka Masar uu yahay urur argagixiso waxaana arintan imaanaysa ka gadaal markii dhawaan dawladda ku meel gaarka ay ka jirta dalka Masar ay iyaduna si cad u sheegtay in ururka Ikhwan Muslimiin uu yahay urur xag jir ah xiriirna la leh al-Qaacida dibadbaxyo ay wali dhigayaan Ikhwan Muslimiinka waxa lagu sheegay warbixin ka soo baxday ururka Jaamacadda Carabta in loo diri doono dhammaan dalalka xubnaha ururka ka ah walina ma jiro go'aan rasmi ah oo ka soo baxay dalalka ururka ku midaysan balse waxa la sugayaa go'aankan ay ka qaateen warbixinta xilligan gaarka ah dalalka ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta ururka xilligan lagu sheegayo inuu argagixiso yahay ayaa waxay ahaayeen taageerayaashii ugu ballaarnaa ee doortay madaxweynihii hore ee dalkaas Mohamed Morsi oo ay xukunka ka tuureen sanadkii la soo dhaafay ciidamada militariga ee dalka Masar magaca ururka Ikhwan Muslimiinka uu huwan yahay ayaa waxa ay tahay walaalaha muslimiinta waxaana la sheegay in arintan ay sababi karto in uu ururku burburo maadaama lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin urur mamnuuc ka ah caalamka ee argagixiso hadalkan ka soo baxay sidoo kale ururka Jaamacadda Carabta waxa ku soo aadaya xilli wali dalka Masar ay ka sii socdaan mudaharaadyo lagu diidan yahay in ururka Ikhwan Muslimiin loo aqoonsado urur argagixiso iyo xabsiga lagu sii hayo madaxweynihii hore ee dalkaas Mohamed Morsi dhanka kale ciidamada qaranka dalka Masar ayaa yareeyay warbixinada ay ka tabiyeen wasiirka difaaca dalka Abdel Fattah al-Sisi ay sheegeen inuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalkaas
war ay soo saareen waxay ciidamadu ku sheegeen in arrintaasi ay tahay mid saxaafadda kaliya ay u gaar ah iyagoona ugu baaqay inay ka digtoonaadaan wararka noocaas oo kale ah. Axmed Maxamed Cali afhayeenka ciidamada Masar ayaa sheegay in Al-Sisi haddii uu taagan yahay xilka madaxtinimada dalkaas laga doonayo in shacabka uu la hadlo una soo bandhigo hamigiisa ku aadan. baarlamaanka Turkiga oo meelmeeyay sharci lagu xakameynayo internetka dalkaas. baarlamaanka dalka Turkiga ayaa xalayto waxa uu meelmariyay sharci ay xukuumadda dalkaasi ku xakameynayso oo ayna la soconayso adeega internetka dalkaas. tallaabadaas oo ay mucaaradku ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xorriyadda hadal iyo wax in la soo muujiyo. qaanuunka cusub ayaa ogolaanaya in dowladda ay xidhi karto page waliba oo ay u aragto inay xidho iyadoo aan wax xukun ah ka sugaynin garsoorka dalkaas. sidoo kale sharciga ayaa ogolaanaya in shirkadaha macluumaadka ay keedin karaan 2 sano ayna saraakiisha Turkigu amar u qabaan in xilliga ay doonaan ay baari karaan. dhinaca kale kumanaan page ayay dowladda Turkigu ay xidhay ayna ku sheegeen in ay wadaan fidno iyo inqilaabyo kala duwan ay dalka ku wadaan mucaaradka dalkaas. iminkana wararka baxsan wararka bariga dhexe. ururka caafimaadka adduunka qaybta u qaabilsan cudurka kansarka ayaa warbixin cusub u soo saaray. waxa uu ku xusay in kiisaska dadka qaba xanuunkan la filayo inay sare u kacaan 57% 20 sano ee soo socda. WHO waxay sheegtay in arrintan ay dhalinayso in loo baahdo halista xeelado cusub oo ka hortaga. warbixintan kansarka dunida oo maanta la soo saaray ayaa saadaal ka bixinaysa waxay ku tilmaantay masiibo aadamnimo. waxay sheegtay in tirada dadka qaba kansarka oo qiyaas ahaan ah 14 milyan sanadkan 2014 ay gaari doonto 22 milyan sanadkiiba 20 sano ee soo socda. tirada dhimashada dadka u dhintay kansarka oo haatan gaaraya 9 milyan sanadkiiba ayaa sare u kici doona oo gaari doona 13 milyan oo qof sanadkiiba. kororka tirada dadka qaba kansarka oo loo aaneynayo dadka da'da ayaa laga maarmaan ka dhigaysa in si weyn diiradda loo saaro barnaamijyo caafimaad oo ka hortag ah sida dhimista cabista sigaarka, yareynta khamrada ama alkoholka, cunooyinka sonkorta badan iyo in dadka ay mar walba sameeyaan baaritaan caafimaad oo jirka oo dhan ah. cilmi baaristan ayaa sheegaysa in kansarka ka dhasha caabuqa sida kan ku dhaca xubnaha taranka ee dumarka iyo beerka looga hortagi karay iyadoo si baahsan loo isticmaalo tallaalka. warbixintu waxay kaloo sheegtay in kororka tirada dadka qaba xanuunka kansarka ay si weyn u saameyn doonto dalalka soo koraya kuwaas oo aan haysan agab iyo dhaqaale ku filan oo ay ku maareeyaan barnaamijyada caafimaad. isku soo wada duubo in ka badan 60% kiisaska dadka uu ku dhaco kansarka ayaa ku nool Afrika, Aasiya, Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika waxaana goobahan ka dhaca 70% dhimashada dadka qaba xanuunka kansarka. intaasna waxay noogu dhamaaday wararkani bariga dhexe oo anigoo ah Cawil Cagaare iminkana idinku duway stuudiyaheena dhexe.